بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، أذكارتي بين كل أحد حجك يقفك حاجك هاي وحى ورانيو أو كعمر يعمل كيسة دعاء الوقوف على الصفا والمروة. ومركز الصفا iyo marwa la taagan yahay ducada la akhriyo markuu qofkii tawaafkii dhameeyo labadii ragcadoodna tukado ayuu gudbayaa inuu tago buurtan la ilaa safa iyo marwa. masjidkun baana imika iska soo hoos galeen. lama dana sallallahu alayhi wasallam nabigu markuu dhawaaday min safa buurta safa kolkuu dhawaaday oo labada tan lagu horeysiinaya qara wuxuu akhriyay aayada inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. aayadaas uu akhriyay markuu sii fuulayo ku sii socdo sidaasaanay ku wanaagsan tahay nabiga laga qaata calayhi salaatu wasalaam. fabada'a bisafa markaa buurtii safuu ku bilaabay maadaamuu ilaahay ku bilaabay faraqiya calayhi buurtii wuu fuulay buurta saas wuu yaro fuulay. iminka dee dabcan waa la jarayoo waa iska yar kuus yaroo taaganu markaa inaad jiirta un yaro fuusho wey xagga sare isma taagi kartid oo yar cidhiidhiya. xataa ra'a albeyta fastaqbala alqibla kacbadii buu markaa arkay intan dee xariirtu ay saarantae dheere madow kolkaasuu qaabiluu jeedsaday fawaxad allaha wakabara ilaahay buu waxiday oo weyneeyey laa ilaaha ila allah wallahu akbar. waqaala sidanaanuu yidhi laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir laa ilaaha ila allahu waxdah anjaza wacdah ballantiisii buu hirgeliyey awliyadiisa u qaaday iyo nebi maxamed wanashara cabdah addoonkiisiina wuu hiiliyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam wahazama alaxzaaba waxdah gaashaanbuurtiina keligii buu jebiyey cid ilaahay ma bahaysto cidduu doonaba wuu ku filayn. uma dacaa bayna dalik intaa ka dhexdeeda ayuu ducaystay. markaa macnaheed waxa weeye kolkuu taa dhammeeyey xoogaa ducaa buu raaciyey inta kolkaad akhrido ducaad raacinaysa. qaala mila hada ثalaaثa maraat saddex jeer buu ku celiyey dikrigan buu ku celinayaa ducadii dikriguu ku celiyay ducadii alxadiid dhammaystir. wa fiihi waxaa ku jiray fafacala calى اlmarwa marwana wuxuu sameeyey kamaa facala calى safa safa sidii uu sameeyo kale intuu soo qaabilay kacbada ayuu dabeetana tawxiidkan akhriyay iyo takbiirtan kadibna waa ducaystay saddex jeer buu sidaa ku dhawaaqay. qof waliba gaarkiisuu ducaysanayaa ilaa wuxuu doonaya ilaahay buu weydiisanayaa subxaana wa tacaala. markaa wareega in yar buu dee qofku dhinac isu yar taagi doonaa waa tan laga soo jiirayo meesha iminka haddii dee mawjadi qaadatu istaagi kari waayana dee isagoo socduu akhriy. adducaau yowma carafa maalinta carafa ducadeedii khayru ducaai ducaau yowmi carafa nebi moxamed wuxuu uhi sala allahu calayh wasalam duca waxaa u khayr badan ducada maalinta carafa ila waa maalin ahaan maalinkii u khayr badnaa maalmaha. wa khayru maa qultu ana anigu waxaan idhaahdo waxa u khayr badan wannebiyuuna min qabli iyo nebiyaashii iga horreeyeyba eray aanu idhaahno maalintaa waxa u khayr badan laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wa huwa calaa kulli shayin qadiir. intaasaa u khayr badan aniga iyo nebiyaashii iga horreeyey midh aanu ku dhawaaqno. markaa culimmadu waxa ay isweydiiyeen dee ducaa baa la sheegay intanina waa tawxiidka ilaahay iyo ammaantiisi maxay noqon. ducadaa laba qaybood bay yidhahaan culammadu ducaau hanaa wa ducaau lmasala. duco loo yaqaano ammaan ilaahay lagu ammaanayo ah iyo duco mas'ale ah oo ilaahay wax lagu weydiisanayo. tani waa ducadii ammaanta ama intan waxaa lagu darayaa ducadii qofku uu ducaysanaya weeye intan wuu ku bilaabayaa labada waa lagu fasiray. الذikru cinda almashcari اlxaraam buurta mashcaru lxaraam la ydhaa musdelifo ku taalla habeenka ciidda siyadana sida dikriga loogu samaynayaa lagu sheegayo inta la akhriyayo
إلهينا وحو أمر إن لغو حصو مشعر الحرام حسكي سلغو بضيو ركب القصواء بورت قاريد كي أما هالشي قصوى اللورين ترو نبي صافو عليه الصلاة والسلام هبين كي عيدا حتى أتى المشعر الحرام إلى ويمي بورتا مشعر الحرام لا يرامي كمسد داريوكا كي كيالو فاستقبل القبلة قبلة مركا أسوتي يتسديو لنا عن وقوي قلبيت كسوحيكت فدعاه إلهي ببريي وكبره ووينيي وهلله وأشهاتي ووحده كليجيب ويالي توحيدك آخري تاليشي التوحيد تكبيرتي وآخري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أذكار تاسو آخرية فلم يزل مدين إنه وضه واقفا إنه تاجنادو هل كاسو تاجنا حتى أسفر جدا إلى واجي وسفي عنه وافتيمي فدفع أي حرك وصدقاتي قبل أن تطلع الشمس انتاني قرعدي صابحين مركي واجي دلاعو سلادي تكادو دعايستو ذكريان اخري انتاني قرعدي صابحين اي صدقاتي عربت لكن ما يسمين جيرين جاهليدي سدا markay xajayaan waxay oran jireen ashriq thabiru kayma nuqiru buur alka ka soo jeedo thabir la ilaa xaga xaram ka soo xig ayay oran jireen thabiru bal hada iftiin si aan u soo dhaqaajino markaa muu sugin nabigu calayhi salaatu wasalaam intii qoraxdu soo baxaysay buurtaas iftiimaysa nimankaa uu khilaafay qabla an tadluca ashams التكبير عند رمي الجمار مع كل حصاه إن الله أكبر الآخرين عند رمي الجمار مركب بورها لتوريو مع كل حصاه مركب قرورح والبطوريس تكبيرة الآخرين للشيء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ساسوقف قولا إلهي باوي عيد ولو وين بإلهي بكسي وين سبحانه وتعالى شيطان لدي يا مجره لكن وحى الله يا رب النبي يقول لي لإقامة ذكر الله إلهي حسكي سنبا ماشا الله مرة يا موياني وحشيطان ماشا فرفردية لدي يا مجره يكبر النبي الله أكبر بورنا كلما رمى بحصاه مركو دقح تورا قرورح تورا عند الجمار الثلاث صدح لبورا مركو قرورح كو تورا الله أكبر الله أكبر سيقول ده وحيابك لكو الضرين ثم يتقدم هرو يرى دقاقية بورت هرمر كتورة هرو يرى دقاقية ويقف يدعو ويستاجي يسوق إلى هاي برية مستقبل القبلة قبلة قابلة يا إلى حاجة كعبة دار وصاص على بورت هرمر كصاص تورة تدبد هذا الدمية إير ضعفه ويستاجي قبلة قابلة يا والدعاء سنية ولبى رافعا يديه لهذا كعبة كربو قاضية بعد الجمرة الأولى والثانية بورت هرية طلبات marka uu soo dhameeyo tuuriyadooda mid walba gadaasheeda u istaagaya gacmuhu kor u taagay ilaahay buu baraya ama jamratul aqaba buurta la ilaa jamratul aqaba ee xagga maka u xigta ee minaba laga baxayo fayarmiha iyadoo uu tuuraya todobadeeda wayukabbiru Allahu akbar booranaya inda kulli xasaa markastuu quruux tuurayo Allahu akbar booranaya wayansarif u dhaqaajin wala yaqifu indaha agteeda istaagi maayo marka saddexda meelood la tuuraya asaasay ku kala duwan yihiin labada buurood ee hore agtooda waa lagu ducaystaa marka yar la dhaafo talaabooyin xogaaya laakiin tashacala dul baa loo dhaqaajiyaa intaasay ku kala duwan yihiin laakiin waxa la oranayay sida loo tuurayay waa iskaga mid inta ducaa ta'ajjub wal amr sar wa ducada ta'ajjubka la yaabka iyo wal amr sar arrinka ka farxinaya qof ذكري وي مرة بدن بعد ذكر وسائن ورا وصح حسن الدعاء لغو شيغا marka qofku arrin la yaabo asar وحويه وفرحته وامر صار صار كي اسلامو لهايان maaha kanuu shidanya صار وحويان waa farxad markuu qofku helo wax la yaabo wuxuu oranaya subhanallah allahu akbar erayadaas oranaya subhanallah إلهي بحمان كوف بحياة كفر أحدا أما الله يعطب سبحان الله يبالله وان ما طاهر باننا هين بو أصحابي وكل وحن كو سلامي والنبي الله سبحان الله إن المؤمن لا ينجس إلهي بحمان كوف فني ما نجاس ووقف كمؤمن كعد ما يفعل من أتاه أمر يسره ووحى أخريه يقفك ويما تأرن كفر حيا أمر يسره وحكا فرحيا كلكو كوي ما تم حاضرنيس
كان النبي صلى الله عليه وسلم أما محاد سمين يسوي ويفعل محو فلا يقف كان النبي إذا أتاه أمر مركو أر النبي قوي ما دا يسره كفر حينيا أو يسر به أما لك كفر حينيا لولا فعل با مدنا مجهوليا مدنا مسمي أرن كفر حينيا أما لك كفر حينيا مركو النبي قوي ما دا خر ساجدا سجود والله دعيا خر ودعيا ساجدا يسقو إلهي السجود شكرا لله تبارك وتعالى إلهي بو مهدنقيا مركا وحو سمينيا سجود الشكر أيو مركا لا إيمانيا وخر راكعا وأناب سيدي نبي داود بي إلهي مركو كتوبة قبلي وسجودي سيدا سوكالو نبي قنا وسجودي جري أرن كفرحيا مركو هلو عالكي قالبا جبي عالكي مسلمين تواقو ليستي قالكي نوعها لدلي بلايدي نوعها هيدا إلهي ديري فيي مركا سجود لدعي جري قالكا وحا كم موقتا ويجرتا سجود الشكر لكن صلاة الشكر معها صلاة الشكر معها النبي سجود الشكر بو سمينجر سجود أنبو لدعي جريون ما يفعل وحو سمينيا ويقول ورنيا من أحس قفك الضريمة وجعا في جسدي قفك تشركي سحنون كالضريمة محو سمينيا محو ساخريا وحو اسكو دريا فعل يا قول هدي تشركاغي ميري كو دمقنيس أما كو بوقتي كو بلبليس سيدنا كو دوين دودي baa laga qaadanaya rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam oo ilaahay dibiga kuliyadii wuxuu ka soo takharujay caafimaadka ilaahay marka bal hadeeg sidoo inoo daweynaya rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri dac yadak gacantaada qof iyo waxaad saartaa ala alladhi ta'allam meesha ololays damqanaysa xanuunaysa min jasadika jirkaaga gacantaad saari farta saar mu oranin meelo kaloo farta la xadiid kaloo sheegaysa farta saar way jirtaa laakiin halkani gacanta saa u saari waqul waxa tiraahdaa bismillaah 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 saddex jeer baad ku celin waqul waxa tiraahdaa sab'a marrat toddoba jeerna waxaad raacinaysaa a'uudu billaahi wa qudrati min sharri ma ajidu wa uhadu a'uudu billaahi wa qudrati min sharri ma ajidu wa uhadu toddoba jeer ku celi xadiidkuna waa saxiix إمام مسلم با كتاب كيسا كسو صاري معنى هيدنا وحوي أعوذ بالله إلهي بان مغنقلي وقدرتي يا أوديس من شر ما شيء بلايديس أجد أن هليو وأحاذر أن كفي تشكنها أن كعب صلايو أجد ووحا أن دريميو حنورة بلايديس إيا وحا أن لبو كان لب البلايو أحاذر أن كفي تشكنها كاشر كيسا إلهي بان كما قلي marka ajiduna waa aan dareemayo way xanuunka dareemayo u xaadiru xadar kuna de waa feejignaanti waxaan ka feejiganahay ee aan la seexan laahay ama aan dareemayo dibkiisa iyo damqashadiisa ilaahay baan ka magan galay ilaahayna uu ka xayoobin biidin ilaahi taala ilaahay awoodiisa aad magan gashay marka bisinko saddex jeer ku celisay inta soo akhriday adigoo gacanta ku naba ku yeerahdee ofta seexan waayaan ku nab adiga hadii shaqiiqata ku qabato ku nab haddii meel kale ku xanuunaysa halka saas u qabo ku akhri kaniin kaydibun baynu inana leeyahay ardigto halkan ay damqanaysa bal ka waran bal horta ducada ku dadaal adigoo dawadaada kale iska wada dikriga ayaa laga dulboodi ducaa man khashiya qofka ka cabsada muxuu ku ducaysan an yusiiba shay'an bi'ayni inuu ishiisa shay ku mudo qofka ka baqa ay sidaada wallaahi kan sidaad u eegayso waa bad cawri ee cawrida ka baqa muxuu ishiisa ku hakinaya ila way ka siiban kartaa way ka muruxsanaysaa leebba ka siiban kare gantaal isha ka boodaya ka siiban kare hadda taa ka yaabyaabto sidaad caruurtaada weegayso u jecesh ama reerkaaga ama dharkaaga ama daarahaaga ama dadka waxooda ayaa tiri wariyaade waa saad la cajibta markaas aad tiri way ka muruxsan bal tanakh dadka ka joojis waxaaga إذا رأى أحدكم من أخيه مركو مدكين كأرك ولالك أو من نفسي أما النفتيس أما الضبط بات كأركت ولا لها يا مسلمين تا أما النفط على واحد كأركت أو ماله أما مال كيسي بوحو كأرك ما يعجبه وحك فرحية الله يابو نفتيس وإلا بعضه أيو قفك سارك فليدعو له بالبركة بركها ودعي فإن العين حق إيش هو يجرتاي فإن العين حق إيش هو حق
hadduu shay qadarka ka dheeraynayo waxa ka muruxsan lahayd isha buu nebigu iyo cawrida laakiin wax qadarka ilaahay ka baxayaan jir marka ishu way jirtaa saasay u dhaqso badan tahay way kaa muruxsan kartaa adoon filayninba marka maa shaa allah tabaaraka allah baaraka allaahu fiih erayadaasaad markaa barakaha ugu duceeyey falyadcu lahu bilbaraka nin baa arkay waktigii rasuulka sala allahu calayh wasalam nin maydhanaya markaasuu yihi maasha alla markaa mu odhanini wallaahi maanta waa la yaab buuri waa ninka jidhkiisu cadda ah kii buu eegayey markaa kii maydhanayay marada dhigtay ayuu markaa jidhkiisii la yaabayoo uu eegayoo ninku jidh caddaa buuri in yar kadibba xumad baa la geliyayoo koomuu galayba ilan leeb buu qabansiiyey oo kaas waxay miskiinkii nebigaa loo soo sheego le ninkii hebel waa dirgan la'ya miyay cid isarkeenoo faalladiiba markiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam haayo hebel baa eegayey bay idhaah markii uu dee maydhanayay labadoodiiba waa la cayibay kolkaasuu yihi muxuu midkiin midka walaalkii u dilayaa ee dilkiisa ugu badrheedhayaa marka uu arko waxa jabgeliyey dee barakaha ugu duceey marka had iyo jeer la idin idhaa jidhka soo maydhana dee maydha markaa waa loo maydhayoo kadibna biyii baa lagu shubayoo fujaankiina dabadiisaa lagu afgembiyey waa kii dhaqaajiyey markiiba warankii baa laga jaray ilaa wixii kan ka dhacay unba haddana lagu celiyey maa yuqaalu cinda alfazac marka la argagaxo waxaa la odhanaya laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah waylun lilcarab min sharin qad iqtarab maada unzila leyla min albalaa calaa macna alxadiid nebigu isagoo shahaadanayuu soo baxo wuxuuhi war maxaa balaayo soo degay carab balaayaa ku soo jahaysatay balaayooyin baa soo dego oo ilaahay uu soo daadiyey laa ilaaha ila allah waxyaaba aafaad iyo fitnooyin gadaal dhici doona aakhiru zamaankaa loo sii nuuriyey nebigaoo markaasuu ka ashahaato wixii aad markaa la yaabteed ka argagaxda ka ashahaado maa yaquulu cinda dabxi aw inaxr gowraca ama dhuundhowga dabxiguna waa xoolaha qaar baa la gowracaa lo-da iyo ariga iyo geelana naxri baa lagu sameeyaa dhuuntaa laga dalooliyaa oo halkaasaa laga jaraa hunguriyaashiisa iyo biyo buuflaa markaa kolkaad wax gowracaysa ama wax dhuundhabaysa sidanaad odhanoo dikrigana mashruuca bismi illaahi wallaahu akbar allaahuma minka walak allaahuma taqabal minii dhexdaasaa la akhriyaya bismi illaah wallaahu akbar ilaahay bisinkiisaad ku gowracaysaa ilaaha weyn allaahuma mink xaggaagay ka timi nicmadani xoolahan adaana siiyey walaka adiga daraaddaa baanu ku gowracaynaa allaahuma taqabal minii ilaahu gowracayga saasaynu ku ducaysanaynaa maa yaquulu liraddi kaydi maradati shayaaiin maa yaquulu waa wuxuu qofku odhanaya liraddi si uu markaa u difaaco kaydi maradati shayaaiin shayaaiinta kuwooda madaxa adag shirqoolkooda si uu qofku u riixo oo u deedifeeyo dikrigu odhanayaa la sheegi shayaaiin iyo afcafaarid iyo abaaliis haddaad ka yaro baqdo shirqoolkooda intanuun akhri maba badne way barakaysantay acuudu bikalimaati illaahi taammaat allatii laa yujaawizuhunna barun walaa faajir allatii kelmadaha dhammayska tiran baan magan galoo ilaahay leeyahay laa yujaawizuhunna aanu dhaafaynin barun walaa faajirun barun mid wanaagsan walaa faajirun iyo mid ilaahay ka fogaaday midna kelmadahan ma soo dhaafi karo min shari maa khalaqa wuxuu ilaahay abuuray oo dhan sharkiisaan ka magan galay wa baraa wadara'a waa isku macno khalaqa un weeye khalaqa bara'a dara'a waa wixii uu abuuray saddexduba wa min shari maa yanzilu min asamaa waxaa samada ka soo degaya sharkiisaan ilaahay ka magan galay wa min shari maa yacruju fiihaa samada waxa fuulaya sharkiisaan ilaahay ka magan galay wa min shari maa dara'a fi lard waxa ilaahay uu dhulka ku faafiyey sharkiisaan ilaahay ka magan galay wa min shari maa yakhruju minhaa dhulka waxa ka soo baxaya sharkiisaan ilaahay ka magan galay wa min shari fitani اleyli waاnnahaar habeenka iyo maalinta fitnooyinka dhexdhaca sharkoodaan ilaahay ka magan galay balaayooyinka habeen iyo maalin uun dhexdhacaya sharkoodaan ilaahay ka magan galay marka waktigii alazmina waalamkina waa aafaat tacawadta biاllaah min aafaati اlasminati waalamkina ilaahay waxaad ka magan gashay balaayooyinka dalalku ay leeyihiin iyo balaayooyinka wakhtiyaashu ay leeyihiin wa min shari kulli daariqin mid kasta oo guuro gala balaayadiisaan ilaahay ka magan galay
ilaa wax badan oo soo guuro galo habeenka madowgiisa soo eegta ayaa jira waa min shari ghaasiqin idaa waqaba ilaa daariqan ku guuro gelaya mooyaane kaasoo yadruqu la guuro gelaya bikhayrin wax wanaagsan yaa raxmaanu ilaaha raxmaanka ahow wixii khayr isagu la guuro gelaya isaga kaamaan magan geline ilaaha ii soo dhaweey waxaan ilaahay ka magan gelayaa waa wixii shar la guuro gelaya marka axmed baa wariyey sanad saxiixa buu ku wariyey ibnu sana laftiisu sanadkiisa isna waa wariyey dheh arnaud shucayb arnaud isaguna waxa uu markuu takhriijinayay ku tilmaamay inuu sanadkiisu saxiix yahay marka halkaasay gaadhsiiyeen culimadaas الاستغفاar والtوبة ilan dembiilayaal baynu nahaaye oo dembiga inaga dhacaa waa badan yahe mar walba waxaynu badinaynaa inaynu ilaahay dembi dhaaf weydiisanay iyo tawba qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه waslم nebigu waxau ihi wallaahi baan ku dhaartay inii la astغfir الlah ilaahay baan dembi dhaaf weydiistay وatuubu ilayhi isagaan u noqdaay oon u laabtaa fi اlyowmi maalintii agara in ka badan min 70 mara 70 jeer waa nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam kii hore iyo kii dambe waa laga dhaafay intuu dhaartay ayaa wuxuu leeyahy dadyow anugu maalintii 70 jeer in ka badan ayaan ilaahay dembi dhaaf weydiistay waqaala salى الlahu عalayه wasalam yaa ayuha الnaas dadow buu leeyahy dadkii o dhan buu u yeedhaya gaal iyo islaamidoo le towbadda wuu baahan yahy tuubuu ilى اllah ilaahay u noqda tuubuu ilى اllah fainii atuubu fi اlyowmi maalintii waxaan u noqdaa ilayhi ilaahay waxaan u laabtaa oon u noqdaa 100 mara 100 jeer 100 jeer waa maalintii waa wardigan istikfaarta ha ilaawi quruur baa ku dhaca qofka had iyo jeer istikfaarta ilaa waa wuu isqanciyey inaanu dembiba lahayn buu isku qanciyey ama dembigeenna inala yar haddaynu istikfaarta afka ka dayno ama waynu isqancino inaynu wax waaweyn oo camala hayno ama dembigeenna inala yar laakiin intuu qofku culayska dembigiisa dareemaya istikfaartu badinaya وqاaل صلى الله عليه وسلم mar kale nebigu waxau yidhi man qaala qofka idhaa أstغfir الlaه الcaظيم ilaahay weynaa baan dembi dhaaf weydiisanaya الذي laa إilaaha إilaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa ilaahaanu jirin isaga mooyaane alxayu noloshiisu daa'imka haydaan dhimanayn alqayuumu heeganka ahaa een hurdo qabanaynin وatuubu ilayhi waan u toobad keenayaa qofka intaa yidhaahda غafar allaahu lahu ilaahay wuu u dhaafaa wuxuu dembi galay wain kaana haba noqdo fara mid firdhaday oo baxsaday min aلzaxf dagaalkii muslimiintu gaalada ay kula jireenba ha ka cararo ilaan kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn waxaa ka mid ahaa maalintay gaalada iyo islaamku ishayaan qofku inuu safka hayn waayo oo uu firdhado cararo safkii muslimiinta ka cararo xataa kabiirada iyo dembigaa weynba ha ku dhacee buu nebigu leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam waa laga dhaafayaa wixii uu gef galay qofkaas xadiidkaasina waa صaxiix wey wa qaala nebigu wuxuu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam aqrabu maa yakunu rabu min alcabd goorta ilaahay addoonka ugu dhow yahay fii jawfi اleyli اlآakhir waa habeenka gelinkiisa dambe habeenka gelinkiisa dambe habeenka dhexdiisao qaybta dambe ah waa 3 meeloodoo min 4 saacadood ee 4ta dambe fain istaطacta qof yow haddaad karto an takuuna inaad ka mid noqoto qof yahow haddaad kari karto miman yadkuru اllaha cidda ilaahay xusaysa ee u daakiraysa digriga wadda fii tilka saaca saacaddaa iyada ah haddaad ilaahay xusi karto fakun qofkaa noqo inaad ilaahay xagga hore ka xusto habeenkii waxaa ka fiican inaad xagga dambe ka xusto marka habeenkii goor hore iska seexo si aad qaybta dambe u kici karto haddii 5 rubcla la adaamo 4 iska kacamo 3 barhka saacad ka horun salaada subax marka salaadna waad ka gaarsiin dikriganna waad ka gaarsiin istikfaartii iyo ducadiina waad ka gaarsiin taasi laakiin dee waxay ku sahlan tahay habeenkii haddaanad soo jeed badan samayninoo xagga hore aad ka seexato 9 barhka 10 meelaha hadduu dee qofku uu qaylo abumarqaan uu yahayna dee salaadba waxaad sheegaysaa jawfuleyl iyo habeenka dhexdiisa salaaddii subaxdaba khalaas ayaaba khatar ku jirtaba wa qaala salى الlahu عalayه wasalam nebigu wuxuu yihi aqrabu maa yakunu اlcabdu min rabbi marka uu addoonku ilaahiisa ugu dhow yahay
ducadiisa degdeg loo aqbalaya waxa weeye wa huwa saajid waa markuu sujuudsan yahay faakhiru ducaa ducada badiya markaa sujuudda had iyo jeer yaan laga degdegina xoogaa ducaa la siiyo subxaana allah subxaana allah subxaana allah inta kalena duco ka gaadhsii meel kolba meeshii kuugu daran dabcan luqa alcarabiya baana lagu ducaysanaya maba aqaano haddaad tidhaahdo dee baro wax badan oo kale waad baran karaysaae haddii imika lagu idhaahdo oo midi ku idhaahdo bal abtirso ood yaro nacnaclayso ama wax isku yaro daadiso khajilaad baad dareemaysa wallaahi waa inaan barta abtirsimadayda baad odhanaysa oo maanta abaan fashilmaybe bal ka war haddaad sujuuddii ducadii sujuudda garan weyday bal ka war aakhirana abtirse lagu odhan maayee dee wuxuuna lagu weydiinayaa diin iyo dikri ayuun baa lagu weydiinaya marka wixii aad ku dadaasho diin iyo dunyaba in yar buu insaan ku bartaa oday kasta islaan kasta adee wixii uu maanta islaa labada kelmadoodu islaa xafid khalaas haddii la idhaha 2 shilin ama 2 gini ama $2 baad suuqa ka soolaysaa kallah wuu tukubayaa horay bay ka ruqaansanaysaa islaantu ikiciyaay bay odhanaysaa 2 kelmadood baynu leenahay haddaba baro 2 kelmadoodoo kale 2 kelmadoodoo kale 200 oo maalmood dee misay baran kartaa kelmado 400 oo kelmadood bay xafidi kartaa oo markaas shayga abateed waa haysee doonaysa ducada badiya sujuudda luqa alcarabiya baana lagu ducaysay wa qaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi innahu arrinku wuxuu yahay la yugaanu calaa qalbigayga la daboolaa sahwiye ilow baa ku dhaca digrigii sidii aan ku ahaabaan ayaan ka yara duwanaadaa wa innii la astakfiru allah anigu markaasaan ilaahay dembi dhaaf weydiistaa fi lyowmi 100 mara 100 jeer baan ilaahay dembi dhaaf weydiistaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dembi ku tiriyey inuu mararka qaarkood digri la-aan ku dhacaba inagu inaynaan daakiriin noqonin waa iska caadi bay noot inaana digriba samayna caadi bay ku tahay laakiin rasuulku wuxuu leeyahay mararka qaarkood baa dabooli fuulaa kolkaasaan digrigii ilaawaa kolkaasaana digrigii ilaahay intii aan la imanin taasuu dembi u arkayaa markaasuu istikfaar ilaahay ka weydiisanaya marka la yuqaطa aw wayuqshaa calaa qalbigaygaa la daboolaa oo sahwi iyo ilow baa ku dhaca eraygu waa erey yaro luqa ah oo rakiiga afضal الtaصbiixi والtaxmiidi والtahliili والtakbiir waa tasbiixta u wanaagsan xamdika u wanaagsan towxiidka u wanaagsan takbiir iyo allahu akbarka u wanaagsan ayuu nebigu inoo laqimaya calayhi الsalaaةu wasalaam qaala salى اllahu عalayه wasalam nebigu waxau uhi man qaala qofka idhaahda subxaana اllahi wabixamdi subxaana اllahi wabixamdi subxaana اllahi wabixamdi taasuu wardiyey fii yowmi 100 mara 100 jeer unbaad ku celisay 100 jeer ayuunbaad ku celisay xudat canhu ma xudat waxaa la ridaa khaطaayaahu gafafkiisaa daadanaya waa laga safaynaya iskiisadii ilaahay baa la marinaya walow kaanat haba noqoto mila zabad اlbaxr badda xumbadeeda haba la egaato badweyn 4 jiha ka xumbaynaysa oo xumbadu dusheeda duulayso xumbadeedu waa intee aad bay u badanta intaa in lagaba haddii dembigaagu ahaa waa lagaa daahirin oo waa lagaa salabayn doonaa markaas sidaasunbaad ku badinaysa subxaana اllahi wabixamdi subxaana اllahi wabixamdi subxaana اllahi wabixamdi kuwa kalena waa kuwan soo socda wa qaala salى اllahu عalayhi wasalam nebi maxamed wuxuu yidhi waa wardi kii u qaalisanaa baa laynoo laqimaya kaasaynu jaxaasanaynaa oo aynu adkaysanaynaa qalbiga aad ku xidhanaysa man qaala qofka idha laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir 10 miraar 10 jeer dikrigaasi imse jeer buu inagu soo noqday aad bay u badan meelo fara badan buu kuu geli karaya kaana wuxuu noqonayaa kaman actaqa qof xoreeyey 4 anfus 4 nafood oo addoommo ahaa qof xoreeyey oo kaluu ka dhigan yihi addoommuhuna kala qaalisane waa addoommo xaggee ka soo jeeda min waladi ismaaciil nebi ismaaciil carruurtiisiiah nebi ismaaciil dad ku abtirsanayo addoommo 4 ah qof xoreeyey ayoo kale ayuu ka dhigan yahay kaana kaman actaqa 4 anfusin min waladi ismaaciil xadiidkaasina waa saxiixaynku ku sugan yahay markaa tee waa wardigaasu waaba taa laguu sheegayba
وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحا وتلمامية أو نليه دليريدنا قالقا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكتابك إمام البخاري صحيحي سكسوا ختموي رك قضى مؤلفين وكلا قضى يدينا ويجران سقوا مسلم وحا وكسوا ختمه هذان خصمان اختصموا في ربي تفسير كآياتها كلمتان خفيفتان بالنبي لا كلمة ذا فضفض على اللسان عرب كي كفضد هذا استلا هذا ده علايس كوجمله ثقيلتان في الميزان ميزان كلا كل علص ما لنتين علايس بهن خير له حبيبتان إلى الرحمن إله الرحمن كأنا وجعلي صدق راس في لبلا كلمة سكودر ماذا وهذا أنقل تاجي سواء هذا تلا لبلا كلمة عربك كفض ميزانك كعلص إلهي وجعليه ترى محي وابين تنبأ سبحان الله وبحمده إلهي بحمان كوفا مهدي سنوان كدرا سبحان الله العظيم إلهي وينابا وناقي أمان له يتنزيه حمان كوفا وإن تاسبت كوردي بركا أورادي بلغو شيء قالقه وقال صلى الله عليه وسلم النبي وحوري لأن أقول إن هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وبين قف اللي بوا قران كرايا هذا مسلمين تلا أنت أبده قف اللي بوا قران كرايا سيدا بدن نادرا تدير موي أنت بدن وكري كرايا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أنت إن هذا النبي يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي مياد كفضل بدنته مياد جاريسة مياد كأجنودة إن أنا وأنت إلى هذا أحب إلي وحى أن كتش علي مما طلعت عليه الشمس قرح ذو وحى أصاب بحضه يددي الدنيا له وحلا وحى عالم كيا لددي الدنيا له قرح ذو أصاب بحيس أنا أقول حن كحي سين يوم كتش علي إن أنت آخرين النبي عليه الصلاة والسلام هل أنت إنه مركا كل الله لينا إنه كور دي إنه وحكي له محل يدي محو يدي قيل وقال ذي إن الله وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنعا وهات إلى هاي الرمال دوروا يدينعي كره لكم عقوق الأمهات ووأد البنات إنا تمرك كدوشان هو يوين كيها بلها أو حماني يديل رب ريدان وحيدين كرهي قيل وقال قيل وحليلي قال وحيلي لبدو دانا يسكو علي قيل وحليلي قال وحيلي بل لبدي يسوقه وحيلي باليلي wuxuu yiri baa la yiri aasun bay markaa noqonaysaa marka la isku sii darbiyo la isku sii dhufto waxay markaa la mid noqotay waxba la'aan de ilaahay taasuu idin karaystay bal intaynu taa tasbiix ka dhiganay nabigu saanu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam وقال marka rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam eeg jannadu haanta gadaankeeda ay saarantay waa laga soo qaadan kari lahay miiskay ku saarantay miftaaxeedu miisku ku saaray laakiin waxa nacasnimaada inaad qaadan ba kari weydaba أيعجز أحدكم بمركان نبي متكين ميو كداليا إلا هو يقانا دادكن إني دالين قلبي كودا دالين وبول بكسار كيب ليس لو رنجرين كارت قبل مركان نبي يقول نديرين يا وحول أيعجز أحدكم متكين ميو كداليا أن يكسب كل يوم 1000 حسنة مالو والبكون حسنات إنه ها سوق كسبه كن أجري أنتو سوقاته إنه أكون كيس كعب يكرته متكين ميو كداليا فسأل سائل من جلسائه فسأل وحا ويدي الرسول كسائل مذ ويدي ومن جلسائه تذكر لفرديا أصحاب تهانين كم إذا باعوا بريرا وحو يري كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة ومتكيس سيدابو كن أجري أصا كسبان كرا مالين كن حسنة إيا كن وناك سيدابو مذ نقام يدي أصا كسبان كرا قال بركان نبي وحو يسبح 100 تسبيح بقول شرب سبحان الله ورنا فيكتب له وحلو قرية 1000 حسنة كن وناك كن حسنة أي له قرية أو يحط عنه أما وحل جريدة 1000 خطيئة كن قف أي له جريدة أكون كي شر كنا وسيع صانية كي خير كنا وسيع قرنانية وبين تينو بهنا هذا
markaa labadaa kolka la isu geeyana miisaankii wanaaguna wuu buuxsamayaa kii kalena wuu madhnaanaya waa laba qof oo isbarbar jooga oo midna waxaanuu gurayaa oo sidanuu khayrka u cabbaynaya midna intiisii buu faaruqinaya oo foostada inta yar uu ku shubay wuu dabada ka daloolinaya kolba oo dubayaal la dhacaya si ay u diiqdiiqanto haddaad xasanaad samayso ood xumaan ka dan weydo way dumayaan waxaagu haddaynu salaado iyo sadaqo iyo soon iyo wadno oynu ummadda ilaahay nabadgelin weynaynu dad mufsidiinoo shar uun wada iyo xan iyo dembi iyo namiimiyanimo iyo balaayo un noqono dee wixii hore aad baabiinaysa markaa tasbiixdaasuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam 100 mara hadda waa tasbiix 100 jeer intanuun isku tirsa marka waa nicmadaa la isku dhuuqayo une ee isku cunka ah man qaala qofka idhaahda subxaana allaahi alcadiimi wabixamdi subxaana allaahi alcadiimi wabixamdi subxaana allaahi alcadiimi wabixamdi qurisat lahu waxaa loo tallaalaa nakhlatun fi ljanna hal geed baa looga tallaalayaa jannada mid kalea loo beeraya mid kalea loo beeraya mid kalea loo beeraya aba laga yaabaa inuu dhaa timirta armaan ka qaraaraa ama biyahan ku caba ay u baahataa ko waaya nakhiishani dee waa nakhiil ka duwanta halkaas tan la mid maaha way kala duwayn magacuun baa isku mid ah marka qofkani jannuu beeraya jannada ilaahay baa dhirteedii wadaad beeraysaa dikrigana lagu beeraa sida xadiidkan soo socdaaba uu tilmaami doono وقال صلى الله عليه وسلم النبي وحوري سقوا أصحابتي يوم مضى المامة يا عبد الله بن قيس أصحابي قاسوا يا عبد الله يوم ألا أدلك ما كنت صيابه على كنز من كنوز الجنة كيد كم إذا كيدتك جنة أديمك الله قول هذا ما كنت صيابان وين وقفك أقول عبو ساردك هاريس ليش فقرك أو طوريه mid waliba laabtuu hore usoo ruqaansan laha wuxuu odhan laha alla aniga waaranaa tolku ah oo qariibku ah aniga iga dhig kaa tusinaysa baanka aniga iga dhig marka nebigu waxa uu leeyahy ma ku tusiyaa kaydadka u waaweyn jannada kayd weyn oo jannada ah ma ku tusiyaa qof kastoo muslima ula hadlaya rasuulku sala allahu calayh wasalam ninkan asxaabiga ha ku halqabsan faqultu balaa yaa rasuula allah lamay fududayn asxaabta in la idhaha janno wax lagu helaya iyo janno wax ku jira ayaa lagu ballan qaadaya lamay fududayn ama lagu tilmaamaya qaala nebigu wuxuu uhi qul waxaa tidhaah laa xawla walaa quwata ilaa billaah laa xawla walaa quwata ilaa billaah laa xawla walaa quwata ilaa billaah kolba kayd baad furanaysa qasnaduun baad kolba mid soo faqaysa wax waliba ay ku jiraan dee dahab iyo lacag iyo lulu iyo marjaan iyo wax khayr oo dhan baa ku jira dee qasnadaha jannada marka laa xawla walaa quwata ilaa billaah mar balaaya dhacduun baynu inagu nidhaahnaa sidii innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun oo kale baynu isticmaalaa maruu qofku madaxa isqabtun buu odhanaya laa xawla walaa quwata ilaa billah laakiin waa dikri caadi oo jannada lagu beerayo oo kaydkii jannada ah wa qaala sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waxa uu leeyahy axabu lkalaami ila allahi afar eray buu ilaahay ugu jeceliyay waa xadiid muslim ku sugan afar kelmadood buu ilaahay ugu jeceliyay bal qoro subxaana allah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك كما دبا يودبك ماله بأيهن بدأت تاتكب بالوضع بأيهن تودي بدأت أتكب بالوضع واتكلا قلبي كرتا توحيد كاثو رئيسين كرتا تصبيح تكبير تاتون تكبلو لن كاتون تككالي أفرتنونها كقضي إلهي كواسو جعلي وحوية سبحان الله إلهي عيبة يا وحانو قلمين أردن وكفوقيه وكنزهيه وكهفيه ما هذا أردن يسقى عليه حتى ما هذا مخلوق لا يسقى عليه مخلوق ولا يكسنه لما هديه هذا ركته وعد ما هذه سمى هدي سلاها بينقط كل الحمد ثابت لله تعالى وأي مخلوق أنا ما هذه السيء سيدا وناكسن ثم هذه السيئة وأبو ريد إلهي بقى أبو ريد حتى هذه مك ألعاب هالكات تلا أمانته كمبني جا أمانة ده سو سمي حتى العيدان ده كمبني أيار عيدة مركا ما هاد كستاب إلهي بقى نقط لا إله إلا الله إلهي بتكور رسالة نمدي وحق الله إن بدن با إنسانك إلهي نمدي سوحك على كل فاقه والله أكبر عيد ولا إلهي بقى كوي وحي وين الشيك توا أنا قلبي جوحي وين أركي يا إلهي سبحانه وتعالى wixii kale halkaas aad iska dhigto
jaaءa acraabiyun ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nin reer miyiya ayaa nebi maxamed u yimi yowm min alayaam faqaala markaa wuxuu ihi callimnii kalaaman aquulu nebi maxamedoo ibar hadal aan idhaahdo wardi ii sheeg wey wardigii aan ku wardii lahaa bal isiiyo ii sheeg qaala markaa nebigu wuxuu uhi qul laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira subxaana allahi rabi اlcaalamiin laa xawla walaa quwata ila biاllaahi اlxakiim laa xawla walaa quwata ila biاllaahi اlcasiizi اlxakiim ninka reer miyigaa markuu nebigu intaa u sheegay nintee wuxuu ahaa af carabiga aad ku qabowsadoo dee yaqaana raggii hadal cunka ahaa wey qaala markaasaa qaala wuxuu ihi fa haaulaa'i ereyadaas lirabbi ilaahaygaalo intani ammaan ay u tahay famaa lii aniguna maxaan leeyahay dee intani waa ammaantii ilaahaye ducadaydii meeday ilan ilaahay unbaa la ammaano xuquuqdiisii loo sugaye famaa lii aniguna maxaan leeyahay dee aan ku ducaysta nebigu markaa ma deedifaynina midhkiisan garb u ark oo ilaahay marka la ammaano waa la baryaa qul waxaad tidhaha buu nebigu uhi allaahuma kfir lii warxamnii wahdinii warsuqnii intaa ku ducayso allaahuma kfir lii ilaahu dembiga i dhaaf warxamnii ii naxariiso wahdinii i hanuuni warsuqnii i ahsaaq intaasay kugu dhanta adduun iyo aakhiraba waxaad u baahnayd intaasay kugu dhammaatay diin iyo dunyaba khalaas dheragti naxariistii ilaahayna waad ka dheragtay waxaad ka dheragtay arsaaqadiisii xalaashahay haye waxbaba maad waayinba intii ninkaas nebigu saas ugu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkaana muslim baa wariyey waa saxiix kaana arajulu idaa aslama callamahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam asalaa kaana nabiy nebi maxamed waxa uu ahaa naxariistiiyo nabadgelya korkiisa haata idaa aslama kaana rajulu dhe idaa aslama markuu qofku soo islaamo callamahu nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu bari jiray asalaa islaam bilaa salaadii ma jiro mar alla markaa uu qofku soo islaamo muu odhanayn aan yar baxnaanin balbeladii iyo baaskii gaalnimadu ha ka adho aan soo yar dhowaynayo inaan didin haddaynu 5 salaadood iyo sunnayaalu dhibno armu firdhadaa arbar iska yar intaad la yar qabsanayso arrimahaasi maya diin bilaa salaada maya markaa salaadu baraya kii soo islaamay ugu horeyn dadka soo islaamayana salaad la'aanteen in badan oo muslimka ka mid ay bilaa salaad yihiin waxay ku tahay caqabad nin baa soo islaamay markaasaan kii soo islaamiyey baa yidhi sidan u tuko masaajkeenu ka bilaabaynaa maydho weysaysa masaajkeenu tegayna rabadaan baa la soomaya haddaad xoolahaysa xajka sekadii arkaantii buu sheegay wuxuu uhi may anugu kaa faraha badan ma doonaya islaamkaa culculus ma doonaya islaamka hebeloo kalaan rabaa hebelkuu arkay waa mid jaadwala ahoo soo dhacayay loon tukanba ashahaadanayana waniyow kaagan uu adag yahay aniga kan hebeloo kale waxa intan aad sheegaysaa ma laha buuri hebelkan salaad ma tago soon ma laha kan ma laha dee intiisaa yara fudud igu dhufa buuri walaak wuxuu noqday tusaale xun namuudajan sayi'a marka in aad noqoto qof caasiya adigoo ashahaadanaya kiibaad soo islaamayaad caqabad ku tahay tusaale xun baad sidaa daraaddeed baa ilaahay munaafiqiinta wuxuu naaraha halka u hooseeyo u geeyey waa tusaale xun oo intay islaameen bay islaamkii ka noqdeen intay ashahaateen bay dafireen waxay leeyihin annagaa soo aragnay diintanoo mid la gala maaha sidaa daraaddeed baa halka u hooseeyo ilaahay naaraha u geeyey waa tusaale xun salaadu barayay qofka soo islaama uma amarahu nabigu wuxuu faray an yadcuwa bihaulaa'i alkalimaat erayadan inuu ku ducaystaa buu qofka bari jiray allaahuma kfir lii warxamnii wahdinii wacaafinii warsuqnii ma badna xikmadooda iyo sirtooday leeyihin allahuma kfir lii ii dhaaf ilan dembigeenna inoogu daran warxamnii ii naxariiso ilaa naxariista ilaahay kama maarmayne wahdinii i hanuuni ilaa hallowunbaa inoogu darane wacaafinii i caafimaadi ilaan cudur waxa ugu daran cadaabka ilaahay iyo dembiga cudur ugu xun waayo cudurrada kale intay ku dilaan bay kaa hadhaan laakiin cadaabka iyo cadhada alle weligeed kaa hadhi mayso waa cudurka dhabta ah ee dilaaga ah waa cadho alle iyo cadaab waa joogta isagu ilaahow caafimaad warsuqni ilaahow arsaaq
xalaashaada igu arsaaq macnaa addoonkii ilaahay uu gacanta hoos haystaa cid kale ku warwareegi maa intaa dhib saasuu barayay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waxaad arkaysaa dikrigu qiimuhu leeyahay markii u horreeyey qofku islaamka soo galay ayaa dikrigii looga bilaabaya marka casharo la fudaydsan kara maaha ina afdala ducaa'i buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ducaa waxa u fadli badan alxamdu lilaah wa afdalu dikri laa ilaaha ila allah alxamdu lilah say ducaa u tahay waxa weeye haddaad ilaahay u mahadnaqdo dee wuu kordhin markaad u mahadnaqdo lain shakartum laasiidannakum baa jiro kororsiimaad bilaabaysa markanaad mahadnaqayso waa adigoo ilaahay ow isii leh ilaa wuxuu kuu ballan qaaday markaad mahadnaqdo inuu kordhinayo haddaad mahadnaqi weydana waad sii qufulaysa nicmadii baad firdhinaysa dikrina waxa u fadli badan laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah markaad socoto markaad shaqaynayso wardiga carabka aad ku haynayso weeye albaaqiyaat الصaalixaat kuwa baaqiga ah wاlbaaqiyaat الصaalixaatu khayru cinda rabbik baaqiyaadka hadhaya ilaahay agtiisa way khayr badan yihiin baaqiyaatu saalixada qur-aanku uu sheegay adduunyada waxaan yaallaa maaha baaqi laakiin waa wax faaniyoo tegaya waxyaabaha uu qofku intuu sii dhigto ilaahay agtiisa u sii oolaya ee waan wanaagsan nebigu sidanuu ku fasiray qur-aankuna sheegay dee subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar walaa xawla walaa quwata ila biاllah xadiidkaasoo axmed shaakir uu ku tilmaamay inuu yahay sanadkiisu xasan saxiix baan leeyahay albaaqiyaat saalixaat kelimaadka adkaarta ah ayuu nebigu ku fasiray calayhi الsalaatu wasalaam kayfa kaana الnabiyu yusabix sidee buu tasbiixsan jiray rasuulku salى اllahu عalayh wasalam can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma qaala ra'aytu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nebi maxamed waxaan arkay yacqidu الtasbiixa biyamiini yacqid isagoo guntaya atasbiix tasbiixda wuxuu ku guntayay biyamiinihi midigtiisa macnaha midigtuu ku wardiyaya oo markuu wardiga tirinayo midigta subxaana allah subxaana allah subxaana allah subxaana allah xubnahana waa lagu tirin karaa anaamilka asaabicdana way riwaayo uu abi daa-uud warinayo saxiixa ayay ku soo aroortay haddaad tidhaahdo malaha xubnahan yaryar kuma tirin kari mayse waxaad ku tirin doontaa asaabica iyo faraha biyamiinihi midigtiisa buu markaa xadiidku tilmaamaya labadaba in lagu tirin karo xadiidka waa ku suganta wuu sababeeyey markaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam inahuna mas-uulaat mustandaqaat waa la su-aali doonaa buu uhi farahan waana laga hadlin doonaa markaa inaad intii khayr aad ku tirisay oo dhan ayuunbay sida aaladan agabkan imika aynu dhaqdhaqaajino batonada garaacna u hadhadlo si ka waadixsan ba iyaguna u hadlaya ila ilaahay baa ku rikoodh gareeyey intii tasbiixaad fartan ku tirisay ama xubinta ayuunbay ka soo daynaysaa un iyaduna tan kalena way ka soo daynaysaa iftiinkii iyo nuurkiina wuu ka muuqanaya markaa inuu qofku tusbax ku tasbiixsado waxa ka fiican faraha allahuma ilaa dee adkaartaa faraha badan